Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sanad walba markii uu dhammaan rabo, dadku waxay buux dhaafiyaan meelaha bookshoobiyada iyagoo gadanayo buugaagta loogu talagalay in sanadka lagu qorto qorshayaasha ay leeyihiin inay qabsadaan sanadkan cusub ee soo socda. Haddaba mar walba oo ay soo gataan buugaagtaasi oo ay ku qortaan qorshayaalkoodii ay samayn doonaan sanadka cusub, haddaba maxaa ka dhigay dadka mar walba qorshayaashoodii inaysan dhaqan gelinin sanadka inta ugu horeysa unbay qabanayaan qorshayaashoodii inta ugu horeysay kadibna way ka cajisayaan. Maxaa sabab u ah? Haddaba xalku muxuuse ku jiraa? Muuqaalkeena maanta ayaynu ku soo qaadan doonaa cilada haysataa dadka oo dhan oo ah inay mar walba ay qorsheeyaan wixii ay qaban lahaayeen sanadkan cusub ee soo socda. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. inta inuu guda gelin muuqaalkeena maanta, ha iloobin inaad like inoo saartid, sidoo kaleetana aad la wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Mahadsanidin. inta inaan guda gelin qaabka loo dejiyo qorshayaasha iyo qodobada ugu muhiimsan ee looga baahan yahay qofka dejinayo sanadka cusub qorshayaashiisa, marka ugu horeyso aynu soo qaadano tusaalooyin iyo waxyaabaha lagu gaaro guulaha ugu muhiimsan. Waxaynu soo dhaafnay sanadka 2022, sanadka 2023 iyo sanadkan 2024 oo haatan dhammaan raba. Marka ugu horeysa qofka waa inuu isweydiiyaa maxaa kaa halaabay sanadadii soo dhaafnay iyo maxaa kuu hagaagay. Maxaad khibrad oo ka baratay sanadadii soo dhaafay, maadaama nolosha adduunku ay tahay caqabado oo laga baranayo casharo muhiima kuwaas oo ku caawin doona mustaqbalkaadii dambe. Haddaba sanad walba waa inuu kuu noqdaa mid casharkiisa wata oo aad ka sii faa'iidaysatid sanadka damba. Aad isweydiisid sanadkani maxaad ka faa'iidaysatay, sanadka damba muxuuse kuu qaban karaa maadaama sanadkii hore aad ku fashilantay qorshayaashaadii qaar ka mid ah. Haddaba dadka marka ay dejinayaan qorshayaasha sanadka, maadaama uu yahay sanad cusub, qof walba waxaa laga maarmaan ah inuu ogaado sanadku waa sanadkii aad soo dhaaftay oo kale, maadaama uu yahay maalmo iyo habeeno. Uu leeyahay saacadihii 24 saacadood ahaa ka badanna uusan lahayn. Waxaa isbedelayo ma aha maalmaha ee waxa isbedelayo waa adiga naftaadii. Haddaba daawade, ha iloobin waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waa inaad naftaadii aad ka gaarto go'aan cad oo ku saabsan qorshayaasha sanadka cusub. Qof walba markii uu dejinayo qorshaha sanadka cusub, waxa uu leeyahay qorshaha sanadka cusub xiiso aad u weyn maadaama uu yahay sanad cusub. Haddaba daawade, waxaa muhiim ah inay nafsadaadii ay fulin karto qorshayaashaasi. Sanadka cusub isagu waa lambar isbedele oo keliya. Haddaba daawade, ha iloobin waxa ugu muhiimsan inay naftaadii tahay oo aadna ka faa'iidaysatid cumrigaadii sanad walba maadaama uu kugu kordhayo cumrigaadii. Haddaba qof walba waxaa looga baahan yahay marka uu dejinayo qorshaha inuu maskaxdiisa ku hayo howlaha isagu uu fulin karo iyo waxyaabaha isagu uusan fulin karin. Haddaba ha dejinin qorshe aadan awoodin inaad samaysid sanadada soo socda ama kaa hortaagan caqabadooyin sida in meel aad u tagtid ama qof aad ugu baahan tahay oo waxaas kaaga cilmi badan aad u tagtid. Qorshayaal noocaas oo kaleeta ah oo adag ha dejinin maadaama ay kugu sababi doonaan qorshaha horeeto haddii uu kuu hagaagi waayo kan damba ayaad ka cajisi doontaa. Haddaba qofka dejinayo qorshaha sanadka cusub maxaa looga baahan yahay, se maxaa ka caawin karaa qofka inuu dejiyo qorshe wax ku ool ah oo uu fulin karo sanadka 2025 ama sanadada ka dambeysa. Maadaama muuqaalkani uu soo gaari doono dad qaarkiis sanadada dambe, waxa ugu muhiimsan ee laga rabo inaad maskaxda ku haysid waa waxyaabaha aad adigu hibada u leedahay ee Alle subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey mawhibada. Taas oo ah waxyaabo uu Alle subxaanahu wa tacaala uu si nafsiyan ah uu kugu fududeeyay inaad qabatid waxyaabahaas. Haddaba qofka waa inuu yaqaanaa waxyaabaha isaga mawhibada uu u leeyahay. Haddaba qorshayaashaadii marka aad dejinaysid, ha dejinin qorshe aad u weyn sida inaad dhahdid sanadkan waxaan baranayaa dhowr luuqadood oo 6 ilaa 7 ah. Ma awoodi kartid inaad baratid ilaa 7 luuqadood.
hal sano gudaheed maadaama luuqaduhu aysan ahayn cilmi. sidoo kaleeto inaad dhahdid 20 xirfadood ayaan baranayaa. sidoo kaleeto inaad dhahdid waa inaad dhowr wadan oo inaad soo maraa maadaama ay tahay mid culeys ah. haddaba qofka waxaa looga baahan yahay markii uu waxyaabaha uu qabanayo inuusan dhihin intaas waxyaabood ayaan rabaa inaan qabto, waa inuu dhahaa sanadkan bilowgiisa dhowrka bilood ee ugu soo horeeya waa inaan waxyaabahaas iyo waxyaabahaas waa inaan qabtaa. waxa guud waa inuusan sheegin. waa inuu dhahaa sanadkan bilowgiisa xirfad hibil ayaan baran doonaa. waa inuu dhahaa sanadkani bilaha ugu soo horeeya waa inaan bartaa luuqad hibil mise xirfad hibil mise wadan hibil inaan tago ayaan rabaa. sidaas waa inuu u qoondeeyaa. haddii uu yidhaahdo sanadkan oo dhan waxaan baran rabaa intaasoo luuqadood, haddaba naftaadii waxay u hanqabtaa inay sanadkani 2025 ay ka dhigto sanadadii ugu wanaagsanaa, taas oo kugu sababaysa inaad qaadatid go'aamo aad qaban karin naftaadii, taas oo kugu sababaysa go'aan walbo aad dejisid inaad ka caajistid oo aad qaban weysid. sidoo kaleeto waxaa lagaaga baahan yahay inaad step ka dhigtid qorshayaashaadii. haddaba macquul maahan inuu qofka hal mar uu buurta fuulo mise sidoo kaleeto dabaqyada oo kaleeto qofka inuu hal mar dabaqa uu fuulo waa waxaan macquul ahayn. waa sidaas oo kaleeto nolosha adduunkani qofka macquul maahan inuu hal mar uu hal tallaabo ku qaado uu gaaro guulihii ugu dambeeyey ee noloshiisa. haddaba qorshayaashaadii ka dhig kuwa step ah oo aad wadooyin u soo maraysid maadaama lagaaga baahan yahay waxyaalaha aad qabanaysid inaad waqti gelisid. haddaba ha iloobin waxyaabo aysan awoodin naftaadii inaadan dusha u saarin maadaama qofka uu hayo xiiso aad u weyn ee sanadka 2025 uu bilaaban rabo. haddaba daawade ha iloobin qorshahaadii hore haddii uu ku hagaago qorshaha ku xiga wuu kaaga fududaan doonaa kii hore maadaama naftaadii ay ka qaadayso dhiirigelin aad u weyn maadaama ay ku guulaysatay qorshihii horeeto. haddaba ha dejinin qorshayaal ku adag inay fuliso naftaadii yuusan ku qaadin xiisaha sanadka cusub maadaama uu yahay sanad qof walba uu doonayo inuu noloshiisa bedelo. haddaba noloshaadii ha ka dhigin mid burburta oo noloshaadii ha u horseedin inay dhibaato gasho maadaama looga baahan yahay inay qabato waxyaalo waaweyn. haddaba qof walba waa inuu dejiyaa qorshayaal macquul gal ah uuna u sameeyaa isteebyo uu marayo. haddaba qofku markii uu sameeyo isteebyada waxay ka caawinaysaa inuu si tartiib ah uu u gaaro qorshayaashiisa sanadka cusub. haddaba qof walba waxaa saameyn ku leh dadka ugu dhow sida asxaabtaadii meelaha aad wax ka baranaysid. qofka waxaa muhiim ah asxaabtiisa inuu hagaajiyo maadaama asxaabtu ay yihiin kuwa qayb weyn ka ciyaara mustaqbalkaadii. haddaba asxaabtaadii ka dhigo kuwa mustaqbalka ku gaarsiiya meel fiican. haddii aad dooratid asxaabta xunxun waxay ku gaarsiin doonaan heer ka hooseeya heerka ay taagan yihiin iyaga. haddaba ha ku qancin inaad joogtid meel hoose. naftaadii waxay awooddaa inay gaarto meelo sarsare. ninka sameeyey gaariga, ninka sameeyey diyaaradda kaama maskax badno, kaama waqti badno. iyagu waxay haystaan 24 saacadood, adiguna waxaad haysataa 24 saacadood. taasi micnaheedu maahan inay kaa maskax weyn yihiin. maskaxdaadii alle subxaanahu watacaala uu ku siiyey waxaad ku kaashan kartaa waxay iyagu sameeyeen iyo wax ka weyn. haddaba ha ku qancin inaad meel hoose joogtid. naftaadii waxaad gaarsiin kartaa meelaha ugu sarreeya ee la gaaro. haddaba daawade ha iloobin awoodda kugu jirta inay ka weyn tahay wax walbo adduunkani yaala. wax walbo adduunkan yaala waad baran kartaa, waadna qabsan kartaa. ha ku qancin meelaha dhexe iyo meelaha hoose. haddaba daawade maxay kula tahay fikraddaadii? qaybta hoose ee kommentiyada inoogu reeb fikraddaadii. muuqaalkeena maanta inta aynu kusoo gabagabaynaynaa. fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay nagu soo bir. haddaad horey noola joogtayna fadlan muuqaalka like saara oo la wadaaga asxaabtaada. inta aynu ku kulmi doonno muuqaalkiisa kaleeto waxaan idinkaga tegayaa sidaas ee nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.